caqabado badan ayaa dul hoganaya doorashada maamul goboleedka Puntland oo aan ka dhacayn caasimadda inkastoo ay jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn ugu dayanaysay sanadihii la soo dhaafay balse waxa ay ku guuleysan weyday 20% dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaana si weyn looga cabsi qabaa muran iyo ismaandhaaf weyn inay dhaliso natiijada doorashadaasi oo ka dhacday degmooyin kooban madaxweyne Dani oo doonaya inuu doorashada si hoose ugu shubto iyo siyaasiyiin mayal adag ayaana isku horfadhiya magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ficilada doorashada loogu magac daray ayaynu warbixinteenan ku falaqaynaynaa ee maamul goboleedka Puntland iyo caqabadaha ay wajahayaan baqashii faraska gaari weyday wadadeedii ayaa maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu cagta saaray iyadoo uu muddooyinkii ugu dambeysay isagoo dimuqraadiyadda Soomaaliland oo kale ku dayanaya ku dadaalayay inuu taabageliyo doorasho qof iyo cod oo ka dhacda deegaamada hase yeeshee arrintaasi oo mar hore fashil ku soo dhamaatay ayaa markii labaadna waxa ay qarka u saaran tahay inay soo gabagabowdo iyadoo aan laga gaadhin natiijadii la doonayay madaxweynaha maamulkaasi majaraha u haya Siciid Dani ayaana doonaya si hoose inuu ugu shubto isaga iyo urur siyaasadeedkiisu doorashada halkaasi ka dhacday oo aan ahayn mid shuruudihii buuxisay sida oo kale magaalada xarunta u ah maamulkaasi ee Garowe ayaanay doorashadaasi ka dhacayn iyo degmooyin dhowr ah oo kale kuwaasi oo ay siyaasiyiin ka soo horjeeda maamulka Siciid Dani ay gacanta ku hayaan sheegeenna inanay ka qabsoomi karin hanaanka doorasho qof iyo cod ayaa u baahan nabadgelyo deganaansho iyo xasilooni siyaasadeed hase yeeshee waxay u muuqataa maamul goboleedka Puntland waqtigan xaadirka ah inuu xiisado siyaasadeed qarka u saaran yahay caqabadaha ugu horeeya ee ay u guuleysan weyday doorashada tan ayaa ah maamul goboleedkaasi oo siyaasiyiin mayal adag ay waqtigan xaadirka ah isku haystaan hogaamiyaha iminka talada haya ee Siciid Cabdulaahi Dani ayaana waxa uu doonayaa inuu sii xijisto jagadiisa isaga oo wax isdabamarin iyo sida oo kale musuq looga shaki qabo siyaasiyiinta kale oo aan ku kalsoonayn ayaa iyaguna waxa ay adeegsanayaan awood kuwaasi oo haysta inta ugu badan magaalada Garowe dadka deegaamadaasi oo aan u diyaarsanayn doorasho qof iyo cod weligoodna soo gelin ayaa caqabad kale ah taasi oo waqtigan xaadirka ah suurto gelin weyday inay magaalada xarunta ah iyo degmooyin kaleba ka dhacaan ficilada loo ekeysiyay doorashada hase yeeshee aan maraynin habmaamuuskii doorasho Puntland ayaa waxa ay ka dhiganaysay tan fursad kale oo ay ku soo gasho xuduudka Soomaaliland iyadoo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa bariga fog ee gobolka Sanaag halkaasi oo lagu arkayay isaga oo albaabada dadka ku garaacaya si uu u muujiyo dimuqraadiyadda aan ka jirin kana hana qaadin guud ahaanba Soomaaliya taasi oo waqtigan xaadirka ah aan Soomaaliland lagu gaadhin ficilada doorashada loogu magac daray ee ka dhacay qaybo kamid ah deegaamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaana waxa ay cadeynayaan bislaanshaha dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo xasiloonida ka hana qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku soo nabad iyo caanamaashay 32 sanadood ee ugu dambeeyay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed